dadweynaha islaamka oo muslimka ah inay macnaha ay ii raadiyaan aabahay baadi koobkiisa ku jira ayaan waa hooyo dhashay 3 caruur ah waxay la ilmeynaysaa inaysan nolol iyo geeri midna ku ogeen aabaheed oo ay ugu dambeysay 20 sano ka hor aabaha maqan waa Axmed Cumar oo loo garan og yahay Madhinte xog dhaafsiisan magaca aabaha ma hayso ayaan hooyadii la weydiin lahaa tixraaca aabihii dhalay gabadhan waxay ka xanuunsanaysaa dhimirka sabab la xiriira jaceylkii ay u qaaday aabihii dhalay ayaan oo ah kan aan baadi goobayno hooyaday aabaheed aanin iska kulkul lahaa marka wuxuu yiri aniga gabadhan kuma siinaani nin wax lagu aamini karana ma tiid ama marka siyaal la ajligeeda ugu yaraan cabaar oo soo raadinay marka dambe hooyaday qalliin gashay qalliin weyn gashay waa leeyahay qalay way dhali weysay marka qalliin markay gashay waxa la yiri wuxuu yiri macnaha xujo uga dhigay inta iga baxday gabartaas inay isiisid qalliin ay iga baxay waxba ay iga baxay ma soo daba kicin ma soo raadsanin inaad keentay qalliinkii wax ay iga baxay marka wuxuu yiri aniga wax ma awoodo qof wax haystamihi ay odayaal iyo dadkii ku dhalay iyo waxa keenso ku keenso oo keensan lahayne wuxuu yiri meeshii ma wadagniyo meeshii waa ka guuray waa macnaha meel kale oo tilmaamay hooyada aabaheeda ها معناه ماشي وكجورنا بو سونو معناه تعرف dambe oo soo raadinin markaan macnaha qaan gaaruna weyn noqday aan macnaha dareemino aab iga maqan yahay muddo adiga markii la raadina la waayo waalidka aabaha marka go magaciisu saddexan iyo halku ka soo jeedo gobolkan wallahi aniga hadda aabahay qabiil la igu sheegay oo cid abgaal la dhahay uu sheegay inuu Abu Bakar cid uu yahay xaguu ku soo jeedaa magaciisa saddexan Axmed Cumar ma dhaafi karo hooyo Canab Canshuur Cismaan in kasta oo aysan wada xusuusan wixii dhacay 20 sano ka hor haddana waxay inoo sheegaysaa in aabaheed uu kala geeyay qoyskan maro imaaday aabahay markuu noolaa aabahay markuu imaaday wuxuu hotel ku guurto asoo fadhiyo oo ima wuxuu aniga guriga ma degnay Madiina degnay ninka dad waa baxa moqta marka sidaas la isku waayay gurigii lama tusin Madiina degan oo guriguna laga qariyo sidaas la isku waayay sidaas la isku waayay haduu ila guriga keelnaa oo imaan la ninkan ma u baahan tahay in Axmed Cumar uu dib u soo laabto oo noloshiisa uu ku soo laabto oo gabadhaada ay saarkaan waa ogolaan gabadha baabeed ogolaan macnaa ciilka ka bixilay adiga maxaa dareentay aniga kale waxaan dareemaa gabadhi habarteed aniga gabartay waa jecel wiilii gabar ay tahay wiilii gabar ay tahay laakiin aabeed inay ku qabowday eesho aan jeclaa qoyskan waxa ay bulshada Soomaaliyeed la wadaageen codsi la xiriira in laga qayb galo baadi goobka ayaan aabaheed oo sidoo kale ah ninka wali ay sugayso hooyo Canab Canshuur Cismaan umada Soomaaliya waxa ka cabsanaa in aabeed ii baadi goob way Axmed Cumar hadoo ku daawanayo isagana maxalad anigu waa wiil walaalkay waa u hambalyo inuu gabartiisa iga soo doono oo soo arko oo soo fiirsado hadii uu nool yahay waa haduu nooleena jannada Allah ka waraa ayaan waa kaligeed gabadhaas kaliya dhashay ka dambana awlaad kala ma galin sababtoo ah ayagoo markaas isqabo markaas ay dhashay ka bacdi caqabada ugu weyn waalidkay ka imaatay kala fogaanshiga ka bacdi ma u maleynaayo wax kalena inay guur kala xataa raadisay ayagoo isqabo waaga sida loo waay maamada way joogtaa wali kaligeed ay dhashay bulshooyinka Soomaaliyeed aniga Xayaad Ibraahim waxa ugu baaqaya gabadhaas waa walaasheen waa u bixi dalka waa dareemi kartaan qofka markii uu waalid uu ka maqan yahay iyo marka uu la jooga maadaama diiqad badan waqti badan ay inoo suuro galin in aan raadino balse maanta inoo taabagelisay dalka TV waxaan ka codsanayaa gabadhaas cid alaale cid muuqaalka naga soo gaaro oo Axmed Cumar oo ku magac dheeraanaanis ahaan Madhinte cid alaale cidii magaca maqasho oo aqoonsato inay la soo xiriirto aabaheed in loo raadiyo ayaan ka codsanayaa aniga ayaan kaliya ma aha
inta ay ka maqan tahay waalidiintooda, balse waxaan u rajaynaynaa ayaan oo ah ubax iftiimaya inay mar-uun heli doonto aabaheed. insha allah waad heli doontaa mar walba sabar. maxamed yaxya jinow, dalka TV, muqdisho.